medicine-ka ama tibka oo kale iyo muslimiinta waxay ku kordhiyeen. wuxuu yidhi waxyaabaha cajiibka muslimku uu dunida keenay waxaa ka mida buu yidhi horumarka weyne ay ka gaadheen art of healing waxa loo yaqaano, ama daaweynta juruuxda, nabarrada daaweynteeda, oo aan ahayn in dhaymo sare lagu daweeyo ee in lagu daweeyo caqaaqiir ama tabletiska antibioticska iyo waxaan la iswaqsiiyo. yani dunidu waagii hore wuxuun bay isticmaali jirtay nabarka sare ama nabarrada in lagu sameeyo dhaymo, laakiin waxay soo kordhiyeen buu yidhi dadkaasi muslimiinta oo kale waxaa loo yaqaano caqaaqiiru dawaa ama waxa kan la liqayo. waxaana oran karaa buu yidhi waxay wax badan ka bedeleen farmacobiya caalamiga. farmacobiya waa yani waxaan farmasigu waxaanu dadka ka iibiya uu siiyo iyo wixii la nooca yani farsamada wixii ku shaqa leh ama daawada iyo wixii ku shaqa leh. wuxuu leeyahay xag bay gaadhsiiyeen mustashfayaadkii ku yaalay ama dhakhaatiirtii ku taallay caalam alislaami bilaadka oo dhan intay sintay buu yidhi ayaa waa ummadii koowaad ee xabsiyadeeda u samaysata buu yidhi inay yeeshaan dhakhaatiir. yani waa ummadii koowaade soo marta dunida ee xataa maxbuusku uu helo ricaaya tibiya, inuu dhakhaatiir helo ku taalla xabsiga gudihiisa. waxay soo kordhiyeen buu yidhi matalan waxyaabaha la yaabka leh ay dunida ku kordhiyeen waxaa loo yaqaano clinical observations, ama in xanuunka baadhitaan lagu sameeyo la tashkhiisiyo. qofka intaan la daweynin in la baadho xanuunku noocuu yahay oo dabeetana la tashkhiisin karo ilaa xad la odhan la magacaabi kara buu leeyahay xanuunka qofka haya ku yahay. yani waa qadaaya hadaanay dunidu hore waqoon. wuxuu leeyahay waxaan odhan karaa waxay soo kordhiyeen ama ay aasaaseenba waxa loo yaqaano medical chemistry-gaba. yani dunidu waagii hore waxay baari jirtay buu leeyahay organic chemistry wixii uun ahaa, laakiin medical chemistry dhammaantii waxaa iskale buu leeyahay sharaftidiisa dadka muslimiinta oo meesha inta kusoo kordhiyay. isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu leeyahay waxyaabaha cajabta ay keeneen waxaa ka mida buu yidhi cilmu lbasariyaat, waa opticska waxa loo yaqaano aragga iyo wixii ku halmaala. wuxuu soo wadaba wuxuu yidhi matalan caalamu tib waxaan odhan karaa buu yidhi waxay ku kordhiyeen ta'liifka mawsuuciga oo aan dunidu hore u aqoonin. yani ta'liifka mawsuuciga waa maxay? waa waxaan encyclopedia loo yaqaano oo ah medical encyclopedia inay keeneen buu leeyahay, oo ah inay qor'een ama keeneen dunida wixii yaallay cilmiga dhakhtarnimo oo dhan ay isugu keeneen meel qura. tusaaluu bixiye markaasi wuxuu leeyahay kitaabka raazi oo kale. arraazi waa caalim ka mid a culamadii muslimiintii hore, dahraan agteeda ayuu ku dhashay ama me waddankan hadda eeraan loo yaqaano. arraazi abubakr arraazi raisis ayay reer galbeedku markay ka warramayaan yidhahdaa kitaabka uu qoray waxaa la yidhahdaa alxaawi. xaawiga bilugatihim iyo waxay u yaqaaneen continents ayay yidhahdeen tarjamadiisa. kitaabkaasi xaawiga la ydhaha waa 20 volume oo medicine only ka warramaya aan wax kale ku jirin. waa 20 volume mawsuuco ka kooban oo medicineka oo keliya. wuxuu leeyahay isagoo sii wata erayadan o dhan waxaan ka soo naqlinaya waa stanwoodco maaha nin muslimi. wuxuu yidhi waa ninkaa reer galbeed ee maraykan ee harvard university ka soo baxay. buuggiisaasi la yidhahdo islamic contributions to civilization wuxuu ku qoray. wuxuu leeyahay wuxuu ahaa buu yidhi muddo dhowr qarniya kitaabka qura universitieska dunidu ay isticmaalaan ilaa xad aan odhan kara buu yidhi ta'tiirka urub almasiixiya isaga ayaa ku sameeyey ama bedelka ku sameeyey. isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu tilmaamaya qoraayada waaweyn ee bilmatal dhankaasi oo kale tibka wax ka qoray muslimkaa waxaa ka mida buu yidhi ibnu sina ninkii loo yaqaanay abasina ayay qoraan iyagu markay ka warramayaan. ibnu sina wuxuu leeyahay kitaab weyn, waa kitaabka loo yaqaan biluga alcarabiya alqanuun. iyagu waxay dhahaan canon ayay qoraan markay tarjumaan. alqanuun matalan waa kitaab aada u cajiiba oo tibiya. wuxuu kaga warramayaa waxa loo yaqaano daawada medicalka ama daawooyinka uu qore uu ka warramaya waxay gaadhaan baa la dhahaa 160 daawo oo kale nooca buu sharxaya iyo waxyaabaha loo isticmaali karaa ama qaababka loo isticmaali karo. wuxuu tilmaamayaa ilaa xad doctor osmer ninka la yidhahdaa wuxuu yidhi ninkaa kitaabkiisu wuxuu ahaa buu yidhi alinjiili tibi medical bibleka buu ahaa buu yidhi bibleka laga baadho medicalkuba wuxuu ahaa buu leeyahay kitaabku qoray ibnu sina ninka loo yaqaano. waxaanu ku tilmaamayaa fitro aada u dheer dunidu inaanay wax kale raajici jirin ama masder kale oo loo weecdaaba inaanu jirin kaa mooyaane. maa min fannin baynu leenahay ka mida funuunta islaamiga ilaa iyo matalan chemistryga fanniga loo yaqaano alkimia waa kelima carabiya. alkimia calaa wasni simia waa kelima carabiya oo caadiya. dadka muslimiintii waxay kusoo kordhiyeen waxa chemistryga loo yaqaano o kale wax aada u tiro badan.
inkastoo falsafada marka hore ka dambaysay chemistryga iyo baaritaankiisu waxyaabo kale ay ku salaysnayd, haddana waxay soo kordhiyeen waxyaaba aada u cajiiba. wuxuu leeyahay matalan ninkaas isagoo hadalkiisa wata waxyaabaha aqoonta ay kusoo kordhiyeen waxaa ka mida buu yidhi nitric acidska, sulfuric acids, hydrochloric acidska iyo wixii la halmaaloo dhan. waxaa ka mida buu yidhi oxidation iyo distillation, crystallization. waxaa ka mid a ilaa xad buu u celinayaa aqoontoodu inay tahay ta keentay in khamrigan cusub yurub ay cabto, walciyaadu billah. yani wuxuu leeyahay distillationka ama tasciidka waxa loo yaqaano o dhan ashyaada saa loo kala miiro. jaabir ibnu xayaan baa iska lahaa matalan in khamro lasoo saaro oo nabiid ama juca ama ahli waxaan la mida, yani wine iyo bir iyo kuwa kan in khamro laga dhalin karo fikradda leh. waxaa iska lahaa ninka loo yaqaana jaabir ibnu xayaan oo ogaaday inuu kala gadisan yihiin boiling pointka ay biyuhu iyo waxyaabahan materialki kala leeyihin iyo alcoholku kuu leeyahay. waayo alcoholku yani around 40 degrees meelahaas buu ku evaporate garooba. tamacneed waxa weyaan haddii la kariyo isagoo nabiid markii hore ahaa waxaa si toosa looga saari karaa wixii alcohol oo dhan, dabeetana waxaa la samayn karaa waxa kan. yani whisky iyo jin iyo waxaan la sheegayo o dhami waa kuwa kanoo distillation lagu sameeyo qura. farsamada isagu markuu soo saaray wuxuu u bixiyey wixii ka soo baxay algawl kelmadda la ydhaahdo. algawl yani waa kelmadii qur-aanka ee ilahay uu ku tilmaamay khamriga akhira inaanu gawl iyo sudaac toona lahayn. gawlku yani waa xanuun, madax wareer ama calool xanuun iyo wixii lamid ah. marka wuxuu u bixiyey baalka magaciisiiba algawl. dabeetana reer galbeedku markay tarjumayeen bay qaynkii af carabigaa waxay ku tarjumeen alcohol. alcoholkan aad aragtaa waa algawlkii qur-aanka ku yaalay ee jaabir ibnu xayaan u soo saaray. laakin macalasaf muslimka dambe jaahilnimada haysayana markay soo tarjumayeen waxay kusii tarjumeen alkuxuul bayana yidhahdeen oo kusii dareen. calaa kulli xaal yani waa umma aan taarikhdeeda waxba ka ogeyn. waxaynu odhan karnaa ummadda muslimiintii dhan kasta nolosha wax badan bay ka bedeleen. hadday cilmi lfeleg tahay ama astronomiga waxa loo yaqaano, hadday jugraphy tahay, hadday malaaxa baxriya tahay, wax kastaba waxaynu odhan karnaa dunida oo dhan si kastaba way u saytareeyeen. ilaa xad bay gaadheen bilmatal astronomiga kan ay qiyaasi karaan, ama maanta waxaynu la yaabnaa in lasii sheego dayax madoobaad dhici doona ama cadceed madoobaad dhici doona. laakin moxamed ibnu jaabir ibnu sinaan caalimka muslimka ee la odhan jiray wuxuu macruuf ku yahay bismi nabati. kitaabkiisa la yidhaha matalan macrifa maطaalic lburuuj wuxuu ku cadaynayaa ilaa xad uu taran buu ka samaynaya ama uu ka warramayay kusufku goortuu dhacayo ama kusuf goortuu dhacayo. yani culamadii muslimiinta hore waxay tijaabin jireen inay ka warramaan cadceed madoobaadkan iyo dayax madoobaadkan iyo waxaan oo dhami goortay dhici doonaan, isagoo adeegsanaya aqoontiisa uu lahaa fanniga kan. xad bay gaadheen dunidoo dhan baynu odhan karnaa ay saytareeyaan. bale waxaan idin tilmaami karaa matalan reer galbeedku ninkay u yaqaaneen henry the navigator xaggan iyo africa usoo kacay oo kale. henry navigator muu baxeen bay idhahdeen lawla aan tadriib aanay siinin rubaantiisa ama nimankii maraakiibtan iyo dooniyahan iyo waxaan oo dhan u waday nimankii muslimiinta ee meesha deganaa. xad buu sii tilmaamaya u leeyahy colombus kuma dhiiradeen buu yidhi inuu xagga yuruba u dhaqaaqo haddii aanu helin aqoontii dadka muslimiinta ah oo ah inay tatwiiriyeen. yani fikrad hypothesis baa jirtay oo nimanka greega ay bilaabeen oo ah dhulku inuu kurawi yahay hypothesis. laakin practically waxa caddeeyey ama shawaahidda cilmigaa waxa u sameeyey culamadii muslimiinta ahay. waxay leeyihiin haddii aanu heleen colombus aqoontii muslimiinta ku saabsanayd kurawiyat ard, haddii aanu heleen bay yidhahdeen colombus aalaadkay muslimiintu soo saareen ee starlab iyo wixii la nooca ama camboski oo ay jina iyo dhulka ka keeneen dabeetana tatwiiriyeen, lawlaa aanu kuwaasi haysteen bay yidhahdeen xataa kuma fakereen bay yidhahdeen inuu atlantica shaka ku dhaqaaqo. yani xataa kuma fakereen buu leeyahay. waa ninka waxaan qoraya waa ninka maraykan ee maaha nin muslima. waxay muslimiintu baynu odhan karnaa fanni kastoo kamida funuuntii cilmiga ahayd ee dunida taale waa horumariya. tusaale ahaan matalan haddaan soo qabanno mathematicskan oo kale waxaa horumariyey dadka muslimiinta ah iyagoo adeegsaday awalan waxaan loo yaqaana annidaam alcushari ama nidaamkan tobanka number ee zero ka bilaabma ilaa iyo 9 ku dhamaada. zeroga kani waa number ay isticmaali jireen hindidu, laakiin muslimiintu intay kasoo qaateen ayay tatawuriyeen. waxay soo saareen markaa muslimiintu waxaan loo yaqaano yani decimal pointska ama fractionska waxaan loo yaqaano dhan dhammaanteed waxaa iskale culamo muslimiin ah. inkastoo taarikhda marka laynoogu dhigayo si beena laynoogu dhigo, waayo taarikhda waxaa laynoo dhigaa alkusur alcushar matalan steven nin la yidhahda inuu soo saaray, laakiin waa sheeke aan waxba ka jirin. waxaa soo saaray caalim muslima oo la odhan jiray alkashani, riyaaduddin alkashani 175 sanadood hortood buu qoray kitaabkiisa oo kaga warramayo masalada tan.
laakiin macalasaf inagu wax ma ogno se iyagu inoo siiyaan un baynu u qaadanaa kaashaani matalan masaladaasi markuu tilmaamayo kale xataa ilaa xad baan odhan karnaa tirada yurub number quray taqaan sawirro greeg ay lahaayeen iyo wax loo yaqaano alarqaam arumaniya oo ah tiradan v dan iyo egaskan iyo l iyo c iyo m iyo tirada noocaasiya ama numberkan qoraalka ee maanta dunida yaalla kanaynu af carabiga ku sheegnaa asalkiisu waa hindi horta laakiin dadka muslimiinta tatawuriyey kan waaxid isniin kitaabkan aynu qoro asalkiisu waa indo arabic bay ku tilmaamaan asalkiisu hore waa hindi kan kale se muslimiinta ciidamo lama leh yani muslimiintu laba raqam bay yaqaaneen laba qaabo wax loo tiriyo mid waxaa la odhan jiray alarqaam alghubariya midna waxaa la odhan jiray alarqaam alhindiya alarqaam alhindiya waa kan maanta waaxid isniin qaabkan aan u qoro laakiin kan kale ee alarqaam alghubariya la yidhaahdo waa kan milmatan saacadda ku qoran oo kale kani ma aha raqam ingiriisiya mana aha raqam yurub ka yimi caalam alislaami baa leh af carabi baana lagu akri jiro waaxid isniin talaata arbaca saban baa loo akri jiray isagoo siisaasiya fikraddu ku salaysanyana waa angalis matalan kowgu hal angaloo kudho xagga sare ku lahaa labadu laba angal bay labadan meelood ku kala lahayd saddexdu saddex angal buu lahaa three angalis oo kala jeeda afartu afar angal bay lahayd shantu shan angal bay lahayd lixdu lix angal waa fikrad ku salaysan angaliska xariijimaha halkani samaynayaan dabeetana waxaa hindi soo samaystay dadka muslimiinta ah waxay yidhaahdaan nimanka taariikhda xisaabta ka warramo o kale lawlaa aanay soo kordhin lahayn numbariska kan dadka muslimiinta ah lawlaa aanay soo kordhin lahayn bay leeyihin waxaan pointka loo yaqaano ee ah markuu zero xaggan maro tirada xaggan ka xigtaana inay qiimo leeday tirada xaggan ka xigtaana inay qiimo leeday waxaa dhici jirtay bay yidhaahdaan inanka elementaryga maanta ku jiraa waxa uu xisaabiyo inaanu filosofiyadii waaweynaayo aristo iyo kuwaasi xisaabin kari jirin yani suurtagal uma ahayn bay yidhahdaan maanta inanka yara elementaryga ku jiraa wuxuu xisaabin karo kaasi waayo muu haysanin numberkan aynu maanta isticmaalno manu haysanin decimal pointska waxaannu isticmaalno ama fractionska waxaanu idhahno xataa ereyga fractionist alfusuur waa kelima af carabiya la tarjumay oo direct translation weliba lagu sameeyey waxaa hortayda taalaad moodaa maqaalo aad iyo aada u tiro badan oo nimankaasi ay ka qoreen masaa'il kale matalan ilaa xad baan odhan karnaa maanta waxaan aljabrada loo yaqaana xisaabta oo kale aljabr waa kelima af carabiya aljabr waa kabitaan ama isku xidh laba shay la isku xigo waa khawaarizmi caalimkii muslimka la odhan jiray baa iska leh ilaa xad baan odhan karnaa xataa maanta xisaabta noocyada ugu dambeeya la adeegsado inkastoo taarikhda marka la dhigayo been laynoogu dhigo matalan calculaska maanta waxaa la tilmaamaa inuu xagga kan ka soo baxay ama nin dambo rariiro inuu soo saaray laakiin taarikhda waxay rumaysantahay cilmu tafaadul watakamul thaabit ibnu qura ninkii la odhan jiray oo ka mid ahaa daarulxikma nimankii wuxuu tarjumi jiray casri lma'muun inuu aragtideeda koowaad lahaa bilmatal logarthamic kana aynu imika dhigano allogarithm kelimada asalkeedu waa magaca khawaarizmi bay ku salaysan tahay allogarithm alkhawaarizmi ninka la yidhaha algawarizmi qori jireen dabeetana allogaritmka magaciisii bay siiyaan laakiin isaga laftiisu ma leh ibn abilciz ninka ibn abi xamza almagribi caalimka muslimka ee la yidhahdo ayaa wuxuu soo saaray muddo aan dhaweyn laakiin saddex caalimo hadda reer yurubaa la siiya markaan masaa'ilka tilmaamayo ma aha kuwa ay hadda muslimku addocoonayaan ee waa kuwa reer galbeed imika iyagu ka noqdeen oo leeyihiin makhtuudaadkayga yurub yaallaan waxaanu ka helnay in waxa kan hebel hebel uga horreeyey laakiin taarikhda markay doonaan indhahay ka ridaan ma jecli taha inaan kasii warramo laakiin waxaa qura aan tilmaamaya wuxuu yidhi waxay siiyeen dadka muslimiinta aqoonta horumar aada u weyn iyadoo sababo badan oo fududeeyey ay keeneen waayo dunida waagii hore waxaa warqada loo yaqaanay wax lagu qoramay ooli jirin waxay dunidu isticmaali jirtay alburdi almasri ama babras baalkii loo yaqaanay ama waxay kaloo isticmaali jireen arraq baalkii loo yaqaanay barchmentiska laakiin muslimiintu samraqande magaalada la yidhahdo hadda raashiku gobollada muslimiinta uu ka haysto ka mid ah ayaa waxaa soo weeraray jiniska dabeetana waxay jebiyeen ciidankii jiniska meeshaasi maxaabiistii ay qabsadeen bay waxay ku dhex qabsadeen warqad nin ka mid a marka ay ogaadeen inuu yahay nimanka waraaqaha samayn kara ninkii odayga ahaa waxaa loo soo diray caalamkii muslimiinta ee bariga dabeetana waxaa la faray inuu baro dadka muslimiinta saa loo sameeyo waraaqaha wuxuu baray xaashida ama warqadda waxaa loo yaqaano waxaynu odhan karnaa xaashida china waxaa lagu isticmaali jiray muddo aada u fog laakiin dunidu may ogeyn markay muslimiintu keeneen xaashida waxaa loo yaqaano ayay waxaa fududaatay inay horumar weyn ka gaadhaan aqoonta qoraalka maanta yurub oo kale wax waraaq ku qoran aqdam wasiiqa yacni waraaq horkeed ku qoran ee yurub taalla waa qarnigii 12aad milaadiga waa waraaquu ka tegay roger ninkii la odhan jiray rogerkiisa qaliya xukumi jiray sicily waa jasiirada yaro la yidhaahdo
oo ah nimankii ku caanbaxay yani islaamka iyo dadka muslimiintaas ay usoo dhaweyn jireen ama waxbarashada dadka islaamiga waxaan odhan karaa dunidu haddii aan islaana ka warrama bilmatal aqoonta maadiga ayaa waxay kusoo kordhiyeen dee fi kulli fan kitaaba aad isaga ballaaran bay isaga baahantay matalan kuwii bilaabay tusaale haddaan idinka siiyo tarjumada hore raggii samayn jiray kennedy oo kale kennedy abu yuusuf ibnu yacquub ilkendi ninka la yidhaahdo keligii wuxuu qoray 15 kitaab oo cilmiga astronomiga ah 9 kitaab oo chemistry 14 kitaab oo xisaaba 23 kitaab oo handasa ah waa nin qura keligii buu intaa qoray ibnu nadiim caalimka la yidhahdo firiskiis oo kale matalan wuxuu ku leeyahay 8 صفحة 8 بيج buu wuxuu ku qorayaa ninkaasi buugaagta uu qoray magacyadooda oo kaliya waa 8 بيج ayaa waxa lagu qorayaa nin quri buugaagta uu qoray مثلا مؤرخ معروف في العلوم جورج سارتر ninka la yidhahdo wuxuu leeyahay isagoo ninkaa ka warramaya 270 kitaab baan u haynaa buu leeyahay 270 kitaab yani culamada muslimiinta ee waagaa joogtay waxay ahaan jirteen horta mawsuuca ninku encyclopediska ahaan jiray fi kulli الفن wuxuu ahaan jiray marka fiqiga la yimaado sheekh fiqiga la weydiiyo markay falsafa timaado wuxuu ahaan jiray caalim la weydiiyo markay xisaab timaado caalim la weydiiyo fi kulli fannin marra waaxida buu ka jawaabi jiray waxaa laga yaabaa inay aad idinku yaab noqoto ragga qaarkood oo la tilmaami jiray inuu 70 afin ku dhadhow ku hadli jiray garaabi oo kale bacd riwaayat waxay tilmaamaan 70 luqo oo dunida luqaadkii ku hadli jirtay inuu wax ka yaqaan yani waxaad aad u yaabi kartaa markaad ogaato nimanka kale qoraalada ay dunida kaga tageen ama sida ay aqoontoodu xadkay gaadhsiisnay مثلا ninkaan idin lahaa aqoontan calculuska baa loo nisbeeyaa inuu isagu asalkeedii bilaabay wuxuu leeyahay david yogin nin la yidhahdo david yogin smith thaabit ibnu qurra buu yidhi waa ninka iskale buu yidhi fadliga ah in loo nisbeeyo cilmu tafaadul wa takaamul waa calculuska waxaan loo yaqaano intuu soo waday wuxuu yidhi ninkaasi waa ninkii koowaad ee dunida si daqiiqa u tilmaama buu yidhi aqoontooda xisaabeed halkay gaadhsiisnay matalan markuu ka warramaya buu yidhi sanadka waxa uu ku sheegay sanadku inuu ka koobayay 365 maalmood 6 saacadood 9 daqiiqadood iyo 10 sekond buu yidhi caalimka muslimka caalimkaasi thaabit ibn qurra la yidhahdee waagaasi noolaa waa goorma waa qarnigii 9aad buu noolaa ee 10 qarni hadda ka hor ayuu noolaa wuxuu leeyahay xisaabaadka daqiiqa ee maanta dunida ugu dambeeyay marka lagu eego half a second in ka yar baa khata ku jirta buu yidhi calculationkiisa oo dhan waa niman computerna haysan wax kalena haysan aqoontii markaas ay dadka muslimiinta dhexda loo adeegsanayay ilaa xad buu leeyahay uu saxay inuu maalmihii 365 ku tilmaamo 6 saacadood raaciyo 9 minut raaciyo dabeetana 10 second halku yidhi unbaa 9 second iyo badh bay leeyihin hada yani ilaa dalika alxad ayuu gaadhsiisnaa aqoonta meesha مثلا marka warrabayo janjeerka dunida oo kale ee 23 digriga aynu ku dhigano wuxuu leeyahay ninkaas bidabdi say iminka u sheegaan buu tilmaamayay waa 23 digrii bay janjeedhaa buu yidhi 30 daqiiqadood iyo 30 second ilaa hada alxad bay gaadhsiisnay aqoonta culamadii muslimiinta hore ay meesha ka ku hayeen laakiin haddii aan isnaahno fanni kasta ka warrama waxay ku dareen waxaad moodaa dee inay u baahanayso muxaadaraad maaha mujalladaad la qoro ayay u baahan tahay ninkii u baahan inuu akhriyana wuu helaya maanta aqoontu waxaad moodaa inay aada u kabacday inkastoo markii hore reer galbeed ay isku dayeen inay qariyaan haddana iyagunbaa imika dib usoo fadhay baabaad moodaa waxaan kaloo tilmaami karnaa laakiin dhan kale waxaad ka garan kartaa cusuurtii dunidu ay madoobay caalam alislaami xadaaradiisu halkay gaadhsiisnay wuxuu yidhi stanwood cob ninka la yidhahda isagoo warkiisa tilmaamaya war xataa buu yidhi cunnada haddaan idinka warramo buu yidhi yurub cunnada qudhee lagu yaqaanay waxay buu yidhi hilibka iyo roodhida ama khubuska oo lagu cuna buu yidhi nabiid iyo jucaaya wixii la mid a yacni wine ama beer iyo waxaa lamida lagu cuno laakiin buu yidhi markii ay crusadesku waa weeraradii koowaad ee ay gaalada yurub kusoo qaado caalam islaamiga markay bilaabeen ayay waxay arkeen buu yidhi weelasha tan aada u macaane muslimka agtooda yaala yacni dhishiska kan cusub ee aan yurubba laga helayn buu yidhi waxay barteen buu yidhi hilib adhigan iyo digaagan cadaska iyo xumuska iyo khudaartan aadka u tirada badan leh waxay ogaadeen buu yidhi bahalkan buriiska loo yaqaanaanay horeba oqoon sbain iyo siqalya waxaa ka soo galay buu yidhi khudaartan cusub ee jiriska beajiska abricates gosbers waxaasi oo dhan yurub may oolin buu yidhi waxaan idin odhan karaa buu yidhi waxaasoo dhan ka kaalaya koobka kaafiga yurub waxa ugu horraysay buu yidhi maqaaxidii koowaad ee yurub kaafi lagu cabo waxa laga furay viana steria meesha la yidhaha caasimadeeda oo qarnigii 7 viana
maqaaxida yara laga furay waxaa asalkeedii loo keenay yaman dabeetana coffee housesku waagaa kadib buu ku biiray ilaa xad buu tilmaamaya u leeyahay crusadersku markay yimaadeen buu yihi caalamul islaami waxyaabahay la cajabeen waxaa ka mid ahaa buu yihi bahal macaan ay meesha ku yimaadeen yurub safarta laguma aqoon markay xaggaa tageen ubay bahasheed macaan aheen way dhadhamiyeen wuxuu tilmaamayaa ninka kani dunida islaamka buu yihi waagay jaamacaadku ka jireen qarnigii 9aad ee miilaadiga مثلا بغداد قاهرة فاس قرطبة هي وحي لمدة حاجة خير بوح جامعة غصمي وكتب في مجل تقولي ولاية أزهر تن ما أنت جنتي والله منه ولا واجي تشتي ما أنت وحنا رنك النابور وجامعات حقوق قديسة أولين النور كيف مدة خاصة يعني مش تدوي جامعات توي أزهر ما شاء الله عليه الصلاة سوى سوى هذا في سوق ولاية جامعات تكوي عليه بالمثل إسباني خاصة إسباني ما كان مسلمين كحكم يتسوي طلعي مالها الله يعلم أي واحد يهانش تقول إن لها يكون وريدان بقطة يوم يجوا الدولة يا عاصمة كريمة تقول يعني بروفيسور هذه كذي بتشجع جامعات إسلامية أي يروح الدعوة دون تشربوا بقطة يوروبيا وحكم هذا يسوي وقت السيوة تقول عليه مدرسة الطب كلو درسها ميديسين مال لو درسها كواد يوروب لقى فرابوي waxay ka bilaabanto meeshan siqaliya la yiraahdo Sicily jasiirada yar la yiraahdo magaalada Salerno la yiraahdo taasna waxaan oran karnaa buu yiri fikrada asaaskeeda waxay ku salaysnay culimo caalamka islaamiga laga keenay in looga dhigo professor ama khubaradii wax ka dhigaysay waxa lagu dhigtay inteeda badanna waxa tarjumayba gaal Afrika ka yimid waagaas Afrikana Yurub ka horeysay oo Suudaan gaal Afrika ka yimid oo Constantine di African baa la oran jiray ayaa Yurub jaamacaadkeeda waxa lagu dhigto dhan uga soo tarjumay caalamul islaamiga waxa lagu hayo caalamka Yurub ayuu soo tarjumay si ay wax u bartaan Spain muslimiintu waxay furteen taariikha hijriga ay markay marisay 290 Musa ibn Nasir nin la yiraahdo ayaa hogaamiyay dadkii muslimiinta furtay waa 713 markay marisay taariikhdan 1992 waxay muslimiintu furteen markaas dhulkaasi kadibna waxay soo gaarsiiyeen xadaaradoodii cilmiga ahayd gaar ahaan waxa aqoon ahaan ay aad u kobocday wadankaasi waqtigu xukumayay nin la oran jiray Cabdiraxmaan an-Naasir iyo ninkii isaga ka dambeeyay al-Hakam athani la oran jiray nimankaas waxay ka aasaaseen Spain meesha loo yaqaano xadaarad aad u ballaaran waxay amar uu ku bixiyay in caalamul islaami علماء joogto dhan nin walba kitaabadiisa uu soo qoro oo la keeno meesha taniyada waxa uu bilaabay inuu aqoonta ku faafiyo bilmathal al-Hakam athani ninka la yiraahdo markuu xukumayo kale magaaladu joogo qora wuxuu ka furay 7 iskuul oo dadku ay wax ku bartaan wuxuu Qurtuba ka dhigay marka jaamacadii ku taalay ama university magaalada Qurtuba la yiraahdo ku taalay ayaa waxay noqotay university caalami oo aad iyo aad dunida ugu caan waxay ahaan jireen baa la yiraahdo professorada meesha ta wax ka dhiga kuwa ka yimi إيرانية شامية مصرية يعني دقة مسلمين أما محاضرين تقوى وين waxay kaloo Yurub hore u martay markii ay muslimiintu furteen jasiirada yar ee Sicily la yiraahdo Sicily muslimiintu waxay furteen 902 markay taariikhdu mareysay waxaanay xukumayeen ilaa iyo 10 yani iyo 19 dadmin 198 sano meelahaasi ay xukumayeen Sicily meesha la yiraahdo ma Sicily oo kale markuu ka talinayay Roger al-awwal Roger the first ninkii la oran jiray waxa la yiraahdaa ninkaasi bilaafkiisa ama guriga boqortooyada iyo dadka degan oo dhan waxay macruuf ku ahaayeen in la keeno dhakhaatiir iyo filosofiyo iyo waxaasi oo ka yimi caalamul islaami Roger kii labaad bilmathal markuu meesha ka talinayay xataa waxa la yiraahdaa boqor dharka uu xidhanayay waxay ahaayeen diraas ah yani style-ka islaamiga ah ayaa la xidhan jiray waxa la yiraahdaa koofiyadu qaadan jiray waxa xaradada ku yaala ay jireen kelimada af carabi ah waxa lagu tilmaamay yani ninkan inuu ninka reer Yurub ama boqorka reer Yurub markuu rabo inuu yiraahdo dad aad u boqor aad u khibrad badan inuu yahay la taliyaasha iyo mustashaaradu waa inay noqdaan niman gad waaweyn oo dhaqal ballaaran si uu cadeeyo yani expertise-kiisu inay ka yimaadeen dunidii horumartay ama yani caalamul islaami inuu isagu ka haysto dhakhaatiir iyo falsafa iyo khubaro horumartay